بسم الله الرحمن الرحيم وحالك نلا جوجا حاج أحمد نور محمد حيري وحاول كم ده حاج محمد نور بوشة صومالية كلنا مقالة البوستون قارهان وليبا وحوي حاجي قدرت وجوه رأي مقالة السود دقة marka waxaaji waxa uu ka soo shaqeeyay dawladda hore kacaanka Soomaaliyeed marka waxaan ka wareysanaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay iyo wixii mataqaanaa ku saabsan ra'iisul wasaarihii hore mataqaanaa Saacadile misal kalsoon laga laabtay marka xaaji ku soo dhawo SWS TV waxa weeye waan dhowahay waana baahsantahay marka xaaji sidoo aragtaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء أنا وأنا قانا وأنن ويا أرجع وأنن أقول لهدي أقول تو أي معركتي وحقبنا يسوع أقول لكفلا ويا أنن سو شقية ويا أرجع نمالة دولة الصومالية وسو شقية وزارة حنانة ده حولها كبعدين بربركي كبعدين المغليين وميلا بدن وعالم ككم إذا كسو شقيقي وتاسو مغلي وطاي marka waan ku soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha la magacaabay waanu gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa xilkiisana inuu Ilaahay u fududeeyaan ugu ducaynaynaa xaaji waxa kale oo weydiinaya ra'iisul wasaarahan cusub ee la soo magacaabay ma u maleynaysaa inuu ka duwanaan doono ama uu ka shaqo badnaan doono ra'iisul wasaarihii hore ee shaqada ka tagay wallahi waxa weeye taas waxay ku xidhan tahay isaga shakhsiyadiisa aragtida uu isaga tiis yay ku xidhan tahay hadba sida uu maaragtay shaqada ay u qabanayo waa wadaniyadiisa waa aqoontiisa waa kartidiisa intaas haddii uu ilaahay la kaashado ee uu go'aan ku gaadhay inuu ummadda Soomaaliyeed wax u qabto wixii ilaahay ku garab galay maaragtay uu ku talagalo waa nin wax bedeli kara oo wax qaban kara weeye laakiin mushkiladdu waxa weeye haddii ay noqoto anigu sida aan doonahayo yeel oo uu yeelo oo ay noqoto inuu camiil uu noqdo marka de wuxuu bedelayaa ma ay jirto ra'iisul wasaarihii meesha ka tagay waxa weeye isaga iyo madaxweynuhu sidoo meesha kaga tagay si sharciga waafaqsan ma aynan ahayn waa la jojoobay si kastaba ha ahaata arintu laakiin waxaa laga yaabaa inuu maaragtay haddii uu isagu inuu wax qabto damco uu qaban kari lahaa laakiin in caqabada badan uu hor istaageen oo xagga maamulka iyo dawladda iyo baarlamaanka iyo yaa dadku u badan yihiin oo ay sheegayaan marka ilaahay la garab galaan leenahay isagana waxaanu leenahay faraynaa ama aanu kula talinaynaa in xilka uu qabtay iyo kitaabka quraanka iyo ummadda Soomaaliyeed ee burburtay oo uu arkayo xaaladeedu sida ay tahay maslaxadeeda garashadiisa iyo awoodiisa iyo aqoontiisa iyo ummadda maslaxadeeda waxaan ahayn inaanu aqbalin oo san yeelin wixii waajibkiisa isagoon ruuxna ku xadgudbin madaxweynahana uu la shaqeeyo madaxweynaha laakiin waxii aan sharcigu ogolayn in maslaxada ummadda Soomaaliyeed ahayn inuu ka qaata ma aha waa in uu sharcigu waxa uu yahay waafajiyo shaqadiisa ummadda Soomaaliyeedna dhibaatadan ilaahay inuu kula garab galo inuu ka maaragtay kuwii ka saari lahaa in uu noqdo isaga iyo golaha wasiirada ee uu dhisanayo xaaji sidaan la socono sanad walbo ra'iisul wasaaraha lagu dhawaaqaa ra'iisul wasaaraha markii shaqada uu sanad u wadana waxa arkaysaa asagii madaxweynaha isku dhacayo isla markii mataqaan ra'iisul wasaarihii shaqadii waa laga ereeyaa marka ma u maleynaysaa ra'iisul wasaarahan in uu ka duwanaan doono ama maartay waqti ka fog uu halkaas uu sii joogo doono anigu adeer waxaan arkaa arintan ummadda Soomaaliyeed way ku soo noqnoqotay wax badan bay ku soo noqnoqotay sababtuna waxa weeye haddii ruux uu xanuunsado asee xanuunkii uu garan waayo
ama meel aan ahayn oo xanuunkii laga hayay meeshii laga hayay meel aan ahayn intuu dhakhtar u tago dhakhtarka u sheegay dee ma daawoobayo waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed inaanay u muuqanin oo inan arag meesha ciladan ay ka imaanayso waxa anigu qabaa ciladan ma aha cilad Soomaalida dhexdeeda ama ahan waxa weeye gacan shisheeya ku jirta meeshan loo dhaga nugul yahay oo aan doonaynin ummadda Soomaaliyeed in dawlad ay cagaheeda ku istaagto dawladu u dhisanta aan doonaynin oo loo dhaga nugul yahay baa jirta oo ma garanaysaa aad iyo aad loogu dhaga nugul yahay si aan caadi ahayn waliba sidaa daraadeed weeye waxa keenaya waa amar meel kale ka imaanaya gacan shisheeya ka imaanaya weeye waxa ummadda Soomaaliyeed kolba iska horimaadkan sababtu waxa weeye wixii waaba joogtayba noqotay ma garanaysa kolkuu ra'iisul wasaaruhu 8 bilood joogo hal sano joogo meesha in la yiraahdo hay maxaa dhowraysaa meeshii waxa ka hagaagi doona hadii si joogo meesha la sii joogo ninkan ka kaxeeb meesha waxa weeye marka ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in ay ka feejignoodaan ka baxaan gacanta shisheeye ma garanaysaa cadawga ee aan doonaynin ummadda Soomaaliyeed inay dawlad hesho lugaheedana ku istaagto intay ka baxdo Ilaahay la kaashato iyo garashadeeda iyo wadaniyadeeda iyo danteeda in ay qabsato hawsheeda gacanta shisheeyaha ee kula gacmaha shisheeye ee ku jirana ay maaragtay iska saaraan حاجة ما صنع سؤال شو قدام بيسي أنا كويدين يا رئيس وزراء هوري وحكى سؤال ذكر الله بتي برلمانكا مركا سيد الأوجي هاي إنه هاي خلاف صار حاجة لا يسقي مدحوينها خلاف خلاف كوجو رين متقنا رئيس وزراء أي نقطي إن شقدي متقنا أصل مركي ولا قدره محاوم لنا سعر داس إن ما أرتس هالشيء أو متقنا برلمانك أصل مركي ay ku degdegaan in kalsoonida ay kala laabtaan ra'iisul wasaaraha waxa weeye adeer waa taas way iska caddahay hadaan la iska indhatireyn nimankan baarlamaanka lagu sheegay anagu baarlamaan weeye ma dhihi kare meesha la keenay dad baa keensaday ummad baa keensatay oo aynan ummadda vote aynan ummadeed ku imanin nimankii shacabku aamineen cuqaashooda ahaaba maaragtay soo qabtay oo keenay meesha waxa loo keenayna waxay ahayd inay ka shaqeeyaan maslaxadda Soomaalida ma ahayn inay ka shaqeeyaan jeebkooda kaliya inay ka shaqeeyaan maynan ahayn anigu uma arko baarlamaan maaragtay ma dhihi karaba waxaan filayaa in kelmadaasuba ay dambi ugu tahay sababtu waxa weeye war meeshan waxa yaala waraaqo wax lagu soo saxiixay oo sharci loo bixiyay anigu sharci waa ka Ilaahay baan leeyahay haddana waxa weeye haddii aan la ixtiraamin oo wixii la qoray ee lagu heshiiyay aan loo hoggaansamin ee la dhinac maro hadda waxa weeye meeshii baarlamaan ma jiro wax la yiraahdo waa niman anigu aan dhihi karo maaragtay calooshood u shaqaystayaal nin waliba ka fikirayo waxoogaa laaluushka ee loo kala waxaynayo waxa weeye waxaan dhihi lahaa war ilaah kitaab baad gacanta saarteen war Ilaahay ka cabsada war ummad baa idin sugaysa wada qaxootiya oo badihii kalluunkii ka dhargay libax badeedkii ka dhargay maaragtay desert ku baabaday la adoonsaday xabsiyadii dawladda adduunka oo dhan ku jira rogmatay war waxaad yeelaysaan Ilaahayna wuu idin daawanaya waxaad ogaataan nin walowba xabaal yar baa lagu gelin Ilaahay baana ku daawanaya waxaad sameynayso taariikh baana jiri doonta ruux walba waa la qori doonaa war waxaan idin leeyahay intaad Ilaahay ka cabsataan ummadda Soomaalida mas'uuliyadii ay idin dhiibatay sida ay u tahay u guta laaluushkan iyo lacagtan caruuruhuna ku hasaawayaan ee aad inta qaadataan aad dhaafsanaysaan masiirkii ummadda Soomaaliyeed warka hadabaan oran lahaa nimankan meesha la isugu geeyay waa baarlamaan la leh waa ma santahay xaaji assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh